عبد الله يجود هم بحد براروك حلي ما سهركين وكم إذا كنت دلت الصايو يا دمان مرت شرفتك لدونا كسواقيب الشيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام runtii farxad iyo sharaf weyn bay inoo wada tahay dhammaanteen in aynu isugu nimaadno madal aqooneed inaynu isugu nimaadno oo aynu noqono bah u gaajaysan inay maskaxdooda iyo aqoontooda runtii koriyaan. waxaan marka koowaad aad iyo aad uga mahad celinaynaa baraarug oo ah runtii dadka isku keenay dadaal fara badanna runtii soo geliyay iyadoo aan ogsoonayn sidii sanadkii hore ay halkan runtii ay ugu qabteen. magaca baraarug ayaa turjumaad inoogu filan oo ah in nafteena iyo inta aynu gaari karnaba ku baraarujino cilmiga iyo aqoonta runtii inta aynu xusuusiyeen waan uga mahad celinaynaa. ilaahayna ajri xasanaad runtii ha ka siiyo. mid waxaan doonayaa inaan ka dhawaajiyo oo ah ahamiyadda luuqaduhu leeyihiin. waqti dhaweyd inta aan halkan fadhiyaan doonayay inaan si fiican runtii u raadiyo waxaa jiray daraasad la isku xidhayo maskaxda iyo runtii luuqadaha. qof kasta oo bini aadan ah maanta waxa uu qofka kala dheer yahay inta uu luuqad ka aqoon badan yahay ama ka garasho badan yahay. waxaa la isku xidhay maskaxdeena oo runtii qof walba uu ilaahay uu siiyey qayb iyo hibo gaarana runtii ilaahay ugu daray. baaxadeeda waxaa lagu qiyaasaa inta kolba aad luuqad aad ka taqaan ee aad shay ku sheegi karto inta luuqadood ee aad leedahay. waayo wax sahlan ma aha. waxay xambaarsan tahay cilmigii luuqadaasi lahayd dhaqanka ay leedahay muxuu ahaayey soo jireenkii iyo taariikhda luuqadaasi ay leedahay. waxaasoo dhan baa luuqadda barashadeeda aad taqaanaa runtii ay aad iyo aad u xambaarsan tahay. midna yaynaan ka boodin wasiirka waynu macsalaamaynaynaa sacabka aynu u tunno aad buu mahadsan yahay. carabigu waan ka xumahay dadka aadka u aqaan mayhi laakiin runtii habeen iyo maalin waxay uurkayga ku jira inaan luuqadda intaanan dhiman aan si fiican u barto. dadkii ku fiicnaana waan ahaa. luuqadda ugu laandheeraysan weeye luuqadaha caalamka. haddaad ku daawato xagga inta badan aan isku fahmayno qolooyinka dhalinyarta ee isboortiga dhegma xoqana sidoo maalin walba channelka luuqadda carabiga ku sheegaya aad ciyaarta ku daawata. xagga haddaad u kacdo hablaha iyo filmada musalsalka ana luuqadda carabiga ayaad runtii isagana xaggiisa runtii mar walba aad u kacda. haddaad ka soo gudubtana quraanka ayaa inagu filan dhammaan oo runtii la inoogu sheegay sida loogu doortay luuqadan runtii sida ay qani u tahay. luuqadda ugu laandheeraysan wixii doona iyo dagaalkii doona ha ku socdee waa luuqadda carabiga. fusxadeeda naxwaheeda murtideeda iyo macnaha ay xambaarsan tahayna iyadoo aan la dhamayn ayaa runtii waqtiga dunidu aan filayaa inay ka dhamaan doonto. ilaahay khayr ha inooga dhigay. marka inay luuqadda carabiga weyneyno runtii aad buu mahadsan inay noo soo xuleen buugaagta halkaa taala inay luuqadda carabiga u bataan. anigu runtii dadka aadka u taageersan baan taas. inagana waxaa inagu waajiba maadaama islaam ahaana luuqadeeni ay tahay wadan ahaana luuqadeena labaad ay tahay inaynu quweyno oo aynu kor u qaadno. sooyo waan ka xumahay wax kastoo aan soo dhijino luuqadda carabiga meel laba kagama jirto. waa runtii dhibaatada ina haysta waanu qiranaynaa. sooyo kaliyana maaha qof kastoo inaga mida isagoo carabiga si fiican u yaqaan haddana waxaa hubaala luuqadda ingiriisiga iyo luuqad faransiis hadduu yaqaan inuu ka doorbido oo marka uu sheekaynayo 100% uu taas runtii ku daro. waxaad moodaa waxyaabaha dunida ka soo baxaya ee la isku saameynaya ee runtii saxaafadda iyo dhinacyada ka soo baxaya
in luuqadda necbaashahayga aada moodo in aada loo badinayo luuqadda carabiga oo runtii iyadoo lagu salaynayo islaamnimada runtii dee ay ku tacalluqdo iyo in dee diinta islaamka ay ku qoran tahay luuqaddii carabiga runtii waxaan u baahannahay inaynu ku baraarugsanaano waxaan isu dayeynay inaan waax samayno runtii soonyo ahaan weli noomay suurtagelin laakiin waxaan filayaa intaanan xafiiska soonyo noloshayda ka tegin inay iman doonto inaan luuqadda carabiga kaga tegi doono oo aan kusoo kordhino muxuu ahaa wax kasta oo runtii soonyo ay leedahay dhalinyarada waa anfacayaan carabigana u badi ayaad insha allah haddii la xidhaa aad noo dhigi doontaa insha allah inteena kalena runtii inaynu ku baraarugsanaano inaynu u baahannahay nooleynta carabiga iyo barashadiisa inaynu ku baraarugsanaano waayo diinta islaamkaa kuu furmaysa aqoonta islaamigaa kuu furmaysa liibaanta oo dhanina runtii way ku jirtaa waxaan ila wadaagayaa qoladii militariga ahaa baan haayay berigii scholarka helay Ethiopia laakiin ka hor Ciraaq waa waqtigaa aan dugsiga sare ahaa soo baxday fursadii koowaad 2002 intii dee kulay dugsiga sare ku jirtay waan isku wada leegnahay Ciraaq baanu xiraysanay dadkii tagay baan kamid ahaa bil nasiib wax igu yiri ka joog mooyaan haddana waan iskaga joogay waayo waqtigaa dagaalkii Mareykanku iyo wixii uu lahaa ayaa aad ugu soo dhaweyd niman aan saaxiibanahay baa tagay markay tageen bay ila soo hadleen waxay ugu yiraahdeen sidii anigoo markaa Ethiopia tagin waxay ugu yiraahdeen waryaa luuqadii ma garanaysaa liibaan akhwaan laynagu odhan jiray haa luuqadii kolay kugu tahayna luuqad oo dhan baro malaha iyaga berigaa dee isii fareen Ethiopia haddana u sii tagay markay noqoto waxay ku tusinaysaa wixii ay kala kulmeen iyo waayo aragnimadii markay halkaa tageen ahmiyadda luuqaddu ay leedahay oo koow ah inaad bulshada alla si fudud ula qabsan karto dhexgeli karto fahmi karto wax halisa kaa joojin karto wax faa'iido ana runtii dee kuu soo kordhin karto haddii kalena dee waxaa tahay adoo aqoon-yahana oo runtii aqoon kasta haysta haddii ummad aanad luuqadeeda aanad garanaynin aad dhex joogto dee jaahil waxba unbaad noqonaysa aqoon-yahanna haddana runtii waa tahay markaa luuqaddu waa isku xidhe waa dabciye in bulshadu iyo qofkaasi ay isfahmaan ayay ka mid tahay haddaad bulsho cusub u tagto oo luuqadooda aad maalintaa kula hadasho si qeyr caadi ah kuu soo dhaweynaya runtii maskaxduna waa ta ay ku korodho ay ku fido runtii aad iyo aad baad mahadsantihiin waxaan doonaynaa inaynu hambalyayno oo sacab iyo sawaxan habluhuna mashaarada ku daraan baraarug aynu runtii ilaahay ha ka jisaaysiyo wayna baraarujiyeen inaguna inaynu intaas aynu ugu deeqno oo aynu u sacabino runtii dhalinyartaas sanadka dambana inteena halkaa joogta maadaama 8 ama 9 dhalinyaro runtii dee xaasileyda ay ahaayeen waxa buugta la inoogu keenay inay jeebkooga ka keeneen waynu ku tari karnaa $1 ama $10 qof kasta runtii inay iyaga laftoodu taana u fikiraan oo mareeg ay ka sameeyaan waqtigaasi ay fundraising runtii kaga dhex sameyn karaan oo qof kasta uu danaynayaa waanu doonayaa meel uu soo mariyo iyo wax uu ku bixiyo ayuun buu runtii leeyahay aniguna kullay waan iska bilaabayaa sanadka dambe 8 diinaas waxaan ballan qaadayaa inaan qayb ka ahaado waqtiga aad soo iibinaysaan oo igu xisaabtantaan haddii la yiraahdo si shakhsi ah Cumar Miigan ahaan aad iyo aadna wada mahadsantiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.